كل wanaagsan saaxiibayaal fartuun balbalaarka ayuu Cismaan Dheeman caantoodii xaaladoodii halkii ay ku dambeysay ayaan idin leenahay balse marka hore waxaan idin leenahay saaxiibayaal Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak meel kastoo joogtaan waxaan idin leenahay waqti kastoo inii tahay waxaan idin leenahay Ramadaan inuu wacnaado maalin wacnaado iyo maalin wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal barnaamijkeena waxaan maanta ku falanqayn doonaa arrinta fartuun balbalaarka iyo Cismaan Dheeman iyo kala tageen mise way in waxba ka jira warinta way isku soo laabteen bal arrintan barnaamijkeena ayaan maanta kaga hadli doonaa marka hore videoga like gare soo kale u share gare saaxiibadana kale ee Facebook inagula jira in baydu helaya aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay dhaqaadkaaga iyo sida quruxda badan ee noo daawataan markasta waa noo dheerigelisaan saaxiibayaal haddaba fartuun Cumar Cali fartuun balbalaarka iyo sigeeda Cismaan Dheeman ayay sidee fartuun mar dhaweeytay muuqaal ay soo duubtay ay ku sheegtay inay kala tageen oo hay si cad u kala dhamaadeen fartuun iyo sigeeda Cismaan Dheeman arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii ay fartuun aysan qaran weydin maalmihii la soo dhaafay barnaamijkana aan si cadaan idin la soo wadaagnay annaka oo idin falanqaynay sida ay wax u jiraan si kastaba haatee arrintu waxay ku dhamaatay iminka inay fartuun iyo saygeedu kala tageen si cadna ay meel fagaaraha uga sheegtay fartuun inay kala tageen misana iyadana u rajisay inuu ilaahay siiyo mid iyada uga wanaagsan oo baariya uga khayr badan iyadana hay sheegtay inaysan waqtigan diyaar u ahayn guurso misal laakiin afarteeda canug oo ku jiro Cismaan Dheeman oo dhalay saddex hore ay hore u lahayd ay la tacaalayso ambahay ilaahay ka rajaynayso inuu siiyo si ay u koriso ambahay akhbaarad kale ay ku soo koriso ay labadaba ilaahay ka codsanayso si kastaba haatee fartuun Cumar Cali waxa ay sheegtay inay Cismaan Dheeman kala tageen waxaanu leenahay ilaahay dadkan isfuraya ee sida weyn ugu soo badanaya baraha bulshada ama saleefka dhexdiisa ku furaya waxay noqdeen kuwo si weyn maaragtay ugu soo batay baraha bulshada oo ay guurka iyo furniinkuba noqdeen wax iska caadi ah abdiyahan dadka inkastoo guurka uu yahay mid fiican aba wax saadaal wanaagsan haddana furniinkii ayaa noqday mid ka badan guurkii 100% sidoo shalay ogeyn maxay isku furay iyo kuna milyoonmanka iyo sidoo kale sharmobay maantana Cismaan Dheeman iyo fartuun Cumar Cali ayaa kala dhaqaaqay arrin murugo la runtii qoysas badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo waalidiintooda ahaa oo ku soo tabcay qoysaskan ama dadkan dhalinyarada ah ayaa ka nahay oo murugo iyo way ku noqotay walbahaar iyo saaxiibayaal waxaan idinku baaqaynaa inaan ku dhaqsan ama ku degdegin furiinka waayo waxa batay waqti xadarkan dadka isfuraya amba sida weyn u kala cararaya inkastoo furiinka yeeshay ilaahay soo dejiyo haddana waxa muhiimadu tahay waa inaad ka meel marto amba xal ku dhamaysa wax kastaba fartuun waxay sheegtay inay kala tageen saygeeda kadibna ay meel fagaara ka sheegtay oo ku qasabtay dantu inay baraha bulshada isticmaasho ugu dambeyntii oo ka sheegto inay si caadi ah u kala tageen fartuun iyo saygeeda si kastaba haatee arrintan ayaan daawadaheena qiimaha badan ee barta ku xidhan ugu walaagnay saaxiib u duceeya dadka isku hadda wada jooga inuu ilaahay isku adkeeyo aysan ku sida dhaqsaabada kala tag kuwa kala tagan ilaahay inuu siiyo mid walba wax khayr qabo ayaan ugu duceynaynaa anagu waa inta bil Ramadaan tahay Ramadaan Kariim ayaan saaxiibadeenahay barnaamijka la gareeyo kalena barteena Facebook xogdoon midina sidoo kale follow soo dhaha aad u mahadsantahay saaxiibayaal